السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية وحنكو السلام أدونكم يلكستيك جوغان سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد إسلامك وحنكو عدصدي قارهان قارك أنيق عن حريرك لينهي أدونكم يلكستيك جوغان وأخونتي إليه inay alla dambi dhaaf iyo weydiiyaan. Caawa waxaan quruxeed u muujiyey oo aan banaanka u soo dhigay wax aan alla dartii mar hore isaga daayay in aan muujiyo qarannimadii Muqdisho sanadka hore siday ahayd iyo sanadkan siday tahay in ay tahay wax ummaddu ay ku qanci karaan. Farxadda aan la qabo qarannimada muuqato iyo hambalada aan u diraayo dadka reer mudug darteed ayaan wax aan mar hore alla dartii u daayay ayaan sameeyey oo aan dib u soo celiyey. Ilaahay markuu waxa ii weydiisan intii i taqaano iyo dadka dega mudug oo aad qaali igu ah hayaankii nabadda soo dhaweyntii mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ay soo dhaweeyeen aanan weli uga hambalyeyn ayaan caawa rabaa inaan meeshaan uga hambalyeeyo. mudug waxaa tihiin dad qaali adduunka aan laga helin. ilaahay cimriga ha idiin barakeeyo. dad midnimada jecel, dad soomaalinimadu ku weyn tahay ayaa tihiin aan qabiil ku lahayn. aad iyo aad ayaan idinkugu hambalyeynayaa reer mudug. maasha allah tabaaraka allah. iisoo ducin oo ilaahay dambi dhaaf siiyo. midnimo soomaalinimo way muuqataa waana wada gaari doonaa biidnillaahi alkariim. erayaan soo qoray aan ka soo qoray Soomaaliya toosoo naaxiyadeedii aan wataa laakiin erayo cusub aan saaray oo aan rabo inaan ku muujiyo sida aan u jecelahay qarankaygi iyo dalkaygi in ilaahay midow midnimo siiyo. maantana dowlad cad oo muuqata oo aan cid inkiri karta jirin ayaa ilaahay ka dhigay dowladda maxamed cabdulaahi farmaajo. waa idinku bogaadinayaa. farxaddana waa idinla qabaa, guushana waa idinla qabaa. waxaa meeshaan bogaadin iyo hambalyo qaali uga dirayaa madaxda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay adduunka ka joogaan. madaxda Muqdisho waxaan si gaar u hambalyeynayaa ninka ugu weyn ugu horeeyo oo qaaliga igu ah waa Cabdiraxmaan Beyle number 1. farmaajo waa kasii jeclaa. waxaana ku jeclaaday sida uu guul ugu tallaabay ammaanadii qarankana uu u ilaaliyey ilaa deynkii Soomaali lagu lahaa intaasoo sano adduunka ay cafiyeen oo kareed weyn oo ku helay. second maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ilaahay uga shukriyo oon kugu hambalyeynayaa sanadkii mooshinka lagaa keenayay oo hurdada iga haadaysay oo aniga dhan maskaxdayda ciil iyo ciriiri aan dareemayay iyo maanta laba weji ay arrintaada noqotay. alxamdulilaah alshukrulah yaa rabbi adaan kaaga xamdiye. maanta dowlad muuqataa tahay ma haddana ilaahay iska leh. muslinkii midnimada jeclaa oo duriyadda Soomaaliyeed adduunka meel kasta ay ka joogaan ducay diraan. ducadoodana ilaahay waa aqbale. alxamdulilaah. anigana barnaamijka ducada aan kuu soo hadiyeeyey erayadii inta aan kugu alifay ayaa muuqcad ilaahay iga tusiyey. alxamdulilaahi aydan waa ka shukriye rabbigan uga xamdiye. alxamdulilah yaa rabbilcaalamiin. waxaan kaloon bogaadina oo hambalyo leeyahay xasan cali khayre markasta dadka
ku guwaabiyo wanaag, gaarsiiyo wanaag, dhalinta iyo dadka da'da yar ku buush gareeya inay dalkooda wax ka bedelaan. aad iyo aad ayaan kugu hambalyeynayaa. Abuukar Mahdi waa nin qaali asagana. aad iyo aad ayaan kugu hambalyeynayaa Abuukar Mahdi. waxaa tahay nin qaran, waxaa tahay nin daacade. annagoo ah inta daacadda iyo qarnimada jecel dad yar ayaan dalka dhan bedeli karnaa. annagoo in yar ah oo tiradeenu ay yar tahay ayaan dalka Muqdisho bedeli karnaa. wanaageena haddaan u samirno guul ayuu ilaahayna gaarsiinayaa. maantana guusha waa kusii saqaynaa, waatan muuqata. maxaan ku rahdaa hambalyaan ku leeyahay ciidamadii Soomaaliyeed, quruxda aa u dhisteen, kala dambeyntii ixtiraamka, respectiga aa dhexdiina isku haysiin. ilaahay raxmaanka idiin siyaadiyo, cimrigana kulligiin allah idiin barakeeyo. oo cimrigiina ilaahay idinkugu talagalay mid kale allah idinkugu daro. taasaan rabbi ka barya habeenii maalin. markaan arka nin Soomaaliyeed oo wanaag u hadlaayo, oo qarannimo doon ah, oo midnimo doon ah, wallaahi ilmadu waa iga da'ataa. ilaahan u baryaa, ma garat. okay, waxaa ii soo haray ninka magaciisa la yidhaahdo Bidhaan. nin qaranaa tahay. ilaahay cimriga kuu barakeeyo, ilaahay cimriga kuu barakeeyo. wanaagii iyo guusha aad doonaysaan oo aad ku sii siqaysaan waan idinla dareemayaa. ilaahay garabkiina ha galo. wanaag ayaa wax bedelo, xumaan waxba ma bedesho. aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa madaxda Soomaaliyeed oo Muqdisho maamusha. mucaaradkana waxaan gaarsiinayaa Soomaalida waxay ku mahadeen fartaan adiga aad leedahay. haddii ay kaa halaado ama bukaan kaa galo ma goyn kartid. fartaadoo xumaatane saa markaa u filfilaqdo kaama fuqayso. fartaadoo xumaatay Soomaalida waxay tiraa filfiliq kaagama harto, ma garat. marka waxaan ilaahay idiin weydiiyey oo allah raxmaanka ee ka baryay inuu ilaahay xaqa iyo towbada idinku toosiyo. xaqa inuu ilaahay idin waafajiyo ayaan rabbi idin weydiiyey. cali mahdi maxamed, masajkan adna qaybaa ku leedahay. qaybta aad ku leedahayna waxay tahay in aad qabiil dib noogu soo celin ayaan kaa codsanayaa. dembi dhaafna allah raxmaankan kuu weydinaya. saacaddu waa meeqo? 7 saac iyo 5 daqiiqo habeenimo waa. ilaahay waxaan kuu weydiiyey dembi dhaaf. biliis qabiil ha nagu soo celinin. dadka kuu buushgaraynayo oo xumaha kugu buushgaraynayo afkaada waa laga fagtay. fitan cid kaa sheegato ma jirin. maalintaa miiska garaacaysay oo qabiil intaa magacaawda dhahaysay. asagaa ugu awood badan dalka, asagaa ugu badan Itoobiya, qabiilka u badan ayagaa ugu doqonsan. qashinka la tuuraya iyo neefka bakti ayagaa loo wacaa. heerkaas maan rabnaa inaad gaartiin. taas ma ahan mid ilaahay kuu dhaweynayso. ummaddaa isku diroosaa. ummaddaa isku darin. ilaahay uga baq. ummadda waa hal, waa muslim. qabiil ma ahan mudda. muqdishona qabiil iskale ma jiro. muqdisho waa maqaamka Soomaali Maxamed oo dhan adduunka meeshii ka jooga. kala sooc naga daa. ma rabna kala soocan. qabiilna waaba dugno, umaba u baahnin. waa kiina burburiyey oo aan waalidkeen ku wayn, oo aan walaalaheen ku wayn, mana u baahnin. daris wax wada cuno oo wanaankooda noolaan ahayn. maantana maxaan nahay? dibadahana qabiilkii sidii Muqdisho looga soo baxay iyo ka darnaa looga dhaqmaa. meel kasta qabiilkaa afeeyey. qabiil ma rabna cali mahdi. muqdishona qabiil iskale ma jiro. muqdisho waa maqaam Soomaaliyeed. Soomaaliya iskale waa muqdisho. biliis xumaha tooba kala noqo. rabbi raxmaankan kuu bari. ilaahay dembigaaga cafiyo. qabiil ma rabna naga daaya. daaseed haddii ilaahay karaal noqdo intaas jaatobana kusii cararaya. waa waanadii waddankayga iyo hambalyadii aan hambalyeynayay in qarankii oo cad
uu soo ifay laysma marag xasdo nicmadan la iskama inkiro qofki ilaahay wuxuu ku nicmeeyey waa loo qiraa dowladda sharaftale waa u qiray hal nin kaligiisna waxba ma qaban karo raggii isku tagay oo dhan oo dowladda Soomaaliyeed wanaagga ku hogaamiyo hambali ayaan idin leeyahay gobolada inta degtane waxaan hambaliye qaal oo lama helaan u dirayaa dadka degan reer mudug dahabaatin Allah idin dhowr Allahna idin barakeeyo insha Allah waan soo gali doonaa ereyada aan kugu tala galay Soomaaliya toos aan kaga sameeyay كانوا كحجاب بإذن الله الكريم أنا جن عفي إلهي ويدي قروحي وحن بنانك ولقي فرحة دول كي كجرت درتين إنه إلهي الدم بالعافية السير قارت حتى حرقا كحر حلوة إيجادين قف وحن عبسيد إلهي كوين تاي وحن اللونج تايم إلهي درتي ودايس بليس إلهي إبرن وإلهي الدم بالعافية السير ولا حسهم على تسدوك باي باي يو إسكجردو أنت أنا وشاك فايدي سوقت وجن فايدي سوناك نوع حمان نوع حسد نوع قبيل نوع تفرارق سومالي وامد قبيل نمر هوري دوكت باي باي